sida loo isticmaalo toonta iyo dhagayraha si loo xoojiyo xubinta taranka ragga. Caafimaadka xubinta ragga iyo awoodda galmada waa arrin muhiim ah marka laga hadlayo nolosha ragga. Waxaa jira waxyaabo dabiici ah oo wax weyn ka tara awoodda ragga oo ay ka mid yihiin toonta iyo dhagayraha. Haddaba waxaan ka hadlaynaa maanta sida loo isticmaalo toonta iyo dhagayraha si loo xoojiyo xubinta taranka ragga. Caafimaadka marka awoodda galmada iyo nolosha ragga muhiim ayay u tahay. Waxyaabo dabiici ah oo wax weyn ka tara ayaa jira awoodda raganimada. Toonta iyo dhagayraha ayaa ka mid ah. Haddaba sida loo isticmaalo ayaan ka hadli doonaa. Inta aanan u gudagelin sida loo isticmaalo, waxaan ka hadlaynaa marka hore maxay toonta iyo dhagayruhu qabtaan. Toonta iyo dhagayraha marka laga hadlayo raganimada maxay qabtaan iyagu. Toonta inta badan waxaa ku jirta maadooyin dabiici ah oo caawiya socodka dhiigga, taasoo muhiim u ah awoodda xubinta ragga. Haddii socodka dhiiggaagu yar yahay, qulqulka xubinta taranka dhiigga soo gaarayo haddii uu yar yahay, awooddaada raganimada way yaraanaysaa. Sidoo kale toontu waxay leedahay maadooyin dabiici ah oo hagaajiya caafimaadka wadnaha iyo xididdada dhiigga. Haddii wadnaha aad ka xanuunsan tahay ama wadnahaagu uusan si fiican dhiigga u soo gaarsiin karin xubinta taranka, iyada laftigeeda awooddaada raganimadu way yaraanaysaa. Xididdada dhiigga haddii cilad ay ka jirto, raganimadaada way yaraanaysaa. Marka toontu waxay leedahay maadooyin ka caawiya socodka dhiigga, xididdada dhiigga, awoodda raganimada kor u qaada, wadnahana awood u yeela. Dhagayraha sidoo kale waxaa ku jira maadooyin dabiici ah oo gacan ka geysta kordhinta wareegga dhiigga. Haddii wareegga dhiiggaagu uu badan yahay, labay kala yihiin socodka dhiigga inuu badan yahay iyo wareegga dhiigga meesha imaanaya, tirada dhiigga imaanaysa inuu badan yahay, way kala duwan yihiin. Socodka toonta ku shuqul leh, haddii tirada dhiigga meesha imaanaysana dhagayraha ayaa ku shuqul leh. Sidoo kale dhagayruhu wuxuu kaa caawiyaa awoodda galmada inay noqoto mid tayo leh. Sidoo kale xoojinta tamarta guud ee jirka. Haddii jirkaaga tamarta ku jirta ay daciif tahay, tamarta guud, awooddaada raganimadu way yaraanaysaa. Haddii wareegga dhiiggaagu uusan badnayn, waxaa yaraanaysa raganimadaada. Haddii awooddaada galmada, waxaasoo dhan waa wax isku xiran. Marka dhagayraha iyo toonta labadoodaba faa'iidooyinkaas kala duwan ayay leeyihiin. Marka toonta si gaar ayaan uga hadalnay, dhagayrahana si gaar ah. Labadooda marka la isku daro marka maxaa dhacaya? Faa'iido noocee ayaad helaysaa? Waxaad helaysaa wareegga dhiigga xubinta taranka ayaa ziyaadaya marka labadooda la isku daro. Midda labaadna awoodda jamaaca ama raganimada ayaa badanaysa, awood ayay yeelanaysaa. Sidoo kalena waxaa adkaanaya xubintaada taranka. Xubintaada taranka way adkaanaysaa, jileeca iyo waxaas oo dhan baa ka baaba'aya. Sidoo kale caafimaadka guud ee wadnaha iyo dhiigga ayaa ziyaadaya. Waxaana tan ugu dambeyso oo marka la isku daro aad helayso ah in culayska iyo daalka jirka oo dhan ay ka haraan. Marka labadooda marka la isku daro waxaad helaysaa faa'iidooyinkan aan hadda xusnay. Haddaba su-aasha marka waxay tahay sidee loo isticmaalayaa toonta iyo dhagayraha marka la isku darayo. Muuqaalka marka qaybtiisa dambe waxaan ku baran doonaa sida loo isticmaalo isku darka toonta iyo dhagayraha, sababtoo ah si natiijo fiican aad u hesho oo xoojinaysa xubintaada taranka. Waxaad u baahan tahay marka 3 shay ayaad u baahan tahay. Waxaad u baahan tahay 3 xabbo oo toon ah oo cusub. Waxaa laga wadaa toon aan nabro lahayn oo duug aan ahayn. Sidoo kale waxaad u baahan tahay 1 qaado oo budada dhagayraha shiidan, 1 qaado ayaad u baahan tahay. Marka saddexaadna waxaad u baahan tahay biyo kulul. Saddexdaas shay ayaa ah 3 shay horta aad isticmaalayso. Waxaad ka bilaabaysaa marka hore shiididda toonta aad ka bilaabaysaa. 3 xabbo toon ayaad soo qaadanaysaa, si fiican ayaad u shiidaysaa. Ama waxaad sameynaysaa in aad budayso toontii, si fiican toon loo jajabiyey ayaad ka dhigaysaa toonta. Marka aad intaas sameyso oo 3 xabbo toona aad riqdo oo aad ka dhigto sida mid shiidan oo kale, waxaad soo qaadanaysaa 1 qaado oo dhagayraha, weliba dhagayraha dhagayraha budada ah ayaa soo qaadanaysaa. Sababtoo ah dhagayraha budada waxaa ku jirta maadooyin xoojiya wareegga dhiigga. Marka aad dhagayra budada soo qaadato, sidoo kale toontii oo kuu shiidan aad hesho, labadoodii ayaad isku walaaqaysaa.
marka labadoodii si fiican isku dhex galaan waxaa soo qaadanaysaa biyo kulul. Biyaha kulul marka toontii oo iyo dhageyrihii oo isku qasan ayaa biyo kulul ku daraysaa, si fiican u walaaqaysaa. Saddexdoodii markay si fiican isugu milmaan waxaa soo qaadanaysaa shaandhe ama waxa aad taqaana miire ama aana miir waxa rabto ayaa soo qaadanaysaa. Waxaad miiraysaa marka biyihii iyo wixii isku qasnaa iyo toontii iyo dhageyrihii yaad kala miiraysaa. Waxaa kuu soo haraya marka biyo ka samaysan toon iyo dhageyre oo diiran, iyagoon aad u qaboobin ayaad marka isticmaalaysaa. Sida loo isticmaalo waxaad samaynaysaa isku darka toontii wixii markaad kala habayso oo shaqshaqi ah ku miirto sidii shaah oo kale dabiici ah ayay noqonayaan. Marka sidii shaah ayaad cabaysaa maalin kasta. Wali waxaad samaynaysaa isbuuca koowaad maalin walba cabaysaa. Kadib waxaad samaynaysaa isbuucii mar ama laba ayaad sidaas samaynaysaa. Isbuucii mar ama laba. Laakiin isbuuca koowaad waa inaad maalin kasta subaxdii isticmaasho cuntada ka hor. Cuntada ka hor waa inaad isticmaasho. Marka isbuuca koowaad aad joogteynaysaa kadibna isbuucii mar ama laba ka dhiganaysaa. Isbedel fiican ayaadna helaysaa insha Allah. Waxaan rajeynayaa muuqaalka inaad wax badan ka faa'iiday. Like saar muuqaalka si saaxiibo badan u gaaro. Haddii aad nagu cusub tahay ha iloobin inaad subscribe ka taabato si ay kuugu soo dhacaan muuqaalada cusub ee aan soo gelino.